بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. qaybtii koowaad waan ka hadalnay alimaam albukhaari siiradiisa, taas ayaan dhamaystiraynaa. alimaam albukhaari cilmiga markuu bartay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay a'imada muslimiinta, makaano weyn ayuu gaaray. marka makaanadaas uu gaaray alimaam albukhaari waxaan ka ogaan doonaa hadallada ay ka yiraahdeen culamada muslimiinta oo waqtigaa joogay. haddii aan ka bilowno shuyuukhda alimaam albukhaari ama culamadii waaweyneyd oo waqtigaa joogtay, waxaa ka mid ahaa alimaam axmed bin xambal. alimaam axmed bin xambal wiilkiisa ayaa su-aalo weydiiyey oo la yiri man ilxufaad, dadka darajat alxifdi gaaray yaa waaye ii sheeg. marka alimaam axmed bin xambal dad badan ayuu tiriyey. wuxuu ku bilaabay moxamed bin ismaaciil albukhaari. hadal kale oo sanad kale oo saxiix ayaa alimaam axmed laga wariyey isagoo dhahayo ma akhrajat khuraasaan mithla moxamed bin ismaaciil. marka taa waxay tusinaydaa imaam albukhaari darajada uu gaaray. alimaam addaarimi oo a'imada muslimiinta ahaa oo maaragtay waqtigaa joogay, waxau yiri هو أكيس خلق الله، عقل عن الله تعالى ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه. الإمام البخاري وددك إلهي سبحانه وتعالى وأبوري نينكو dadka ugu caqli badan dhanka maaragtay kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam. wuxuu alimaam albukhaari ayuu yiri alimaam addaarimi, haddii uu qur-aanka uu bilaabo oo aqriyo idaa qara'a muxamedun alqur'aana shagala qalbahu wa basarahu wa samcahu wa tafakara fi amhaalihi wa carafa xalaalahu min xaraamihi. qur-aanka waxa uu la tacaamuli jiray alimaam albukhaari markii uu akhrinayo qalbigiisa ayuu furi jiray, araggiisa iyo maqalkiisa ayuu qur-aanka ihtimaam siin jiray. siduu ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu lacalakum turxamuun. amhaashi qur-aanka ayuu ku fikiri jiray. alxalaal walxaraam wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu awaamirtiisa iyo nawaahidiisa waxaas oo dhan ayuu aad iyo aad ayuu u fiirin jiray. sidoo kale mashaayikhda alimaam albukhaari waxaa ka mid ahaa alimaam cali bn almadini oo ahaa culamadii waaweyneyd oo zamankaa joogtay. alimaam albukhaari waxauu yiri ma stasqarad nafsii cinda axadin ilaa cinda cali bn almadini. nafteyda ma yaraysanin oo iskuma arkin inaan ahay qof yar. culamada markaan la fadhiisto nin walba waxaan dareemaya in maaragtay aan ka kor ahay oo maaragtay cilmigeyga oo maaragtay cilmigiisa oo maaragtay la mid yahay amba saas oo kale, ilaa imaamkaas cali bin madini. maxaa yeelay a'imada waqtigaa joogtay nin walba jaanib ayuu ku takhasusay. alimaam axmed bin xambal wuxuu ahaa nin maaragtay fiqig alxadiid aada u yaqaanay. alimaam yaxya bin maciin wuxuu ahaa nin rijaashaas ku xeel dheer. alimaam cali bin madini wuxuu ahaa isaga cilalulxadiid nin ku xeel dheer oo imaam ku ah. marka waa cilmi aada daqiiq u ah. marka alimaam albukhaari wuxuu leeyahay ma stasqarad nafsii cinda axadin ilaa cinda cali bin madini. qofka insaanka waxuu xifdin karaa, ragga wuu baran karaa, ninkan waa hiqa, ninkan waa daciif, laakiin in uu ogaado xadiidka asaga ah in uu cilo leeyahay in kale waa arrin aada u maaragtay cilmi daqiiq ah. wamaca dalika maaragtay markii loo sheegay cali bin madini oo la yiri ninka bukhaari saas ayuu ku leeyahay, wuxuu yiri dac qowlahu huwa maa ra'aa mithla nafsi, huwa maa ra'aa mithla nafsi. bukhaarigan ujeediin waa nin imaam ah oo zamankan dadka joogo dhan mid la mid a ma jiro. alimaam ibnu kathiir wuxuu leeyahay culamo badan ayaa maaragtay bukhaari heer waxay gaarsiiyeen in uu ka fadli badan yahay xataa alimaam axmed bin xambal.
marka culamadii zamankiisa joogto dhan waxay isku waafaqeen in uu alimaam albukhaari inuu yahay nin imaam fi lxadiid oo a'imat almuslimiin inuu ka mid yahay. haddii aan usoo laabano dadka asaga bukhaari la mid ahaa oo maarata ama ardadiisa ahaa amba maarata kufacda ahaa, haddii aan usoo noqon hadaladooda waxaa ka mid ahaa alimaam muslim wuxuu yidhi ashhadu annahu laysa fi dunya midlak, waxaa markhaati ka ahay inuusan adduunkan saarnayn qof adiga kula mid ah. sidoo kale alimaam tirmidi waxa uu yidhi lam ara midlahu jacalahu allahu zayna hadihi اlumma, qof asaga la mid ah ma arkin. ilaaha laga soo wariyay alimaam muslim wuxuu ahaa kulamaa dakhala yusalim kaana yaquulu dacnii uqabil rijlayka ya tabiib alxadiid. bukhaari ayuu saas ku dhihi jiray. alimaam ibnu khusayma wuxuu yihi maa taxta adiimi الsamaa aclama bilxadiidi minhu, samada hoosteeda qof cilmiga xadiidka ka badiyo ama kaga cilmi badan ama ka xifdi badan ma jiro alimaam albukhaari. marka bukhaari darajadaas uu gaaray oo culamada dhan ay isku waafaqeen inuu yahay imaam hada alfan, waxaa dhacday maaragtay in uu alimaam axmed ibn xambal ugu naseexeeyey inuu baqdaad uu soo dego oo maaragtay maadaama ay tahay caasimadda islaamka oo culamada dhan meesha isku imaan, laakiin imaam bukhaari wuxuu gartay inuu wadankiisa uu ku laabto naysaabuur uu ku laabto si uu cilmiga meesha uu fidiyo. marka alimaam albukhaari markii uu ku laabtay naysaabuur sanadka markuu ahaa 250, dadkii o dhan ayaa usoo arooray oo maaragtay banaanka ayaa maaragtay loo soo baxay si loo soo dhaweeyo. marka waxaa dhacday imtixaan yar, alimaam bukhaari imtixaan ayaa qabsaday. ninka sheikha magaalada ahaa oo nin caalim weyn ahaa ayaa maaragtay markuu arkay dadkii oo dhan maaragtay inay imaam bukhaari soo dhaweynayeen oo u baxeen, ayuu maaragtay xoogaa waxaa galay xasad. marka maaragtay meeshii imtixaan ayaa meeshii ka dhacay. marka imaam albukhaari maaragtay waxay qasab ku noqotay marka in magaaladii uu ka baxo. ninka maadaama sheikha weynaa uu yahay uu maaragtay ninkan uu leeyahay ninkaas yaan lala fadhiisanin oo wax laga baranin oo maaragtay ninkii asaga u tago waa nin mubtadica ama saas oo kale. marka imaam bukhaari wuxuu gartay inuu maaragtay magaalada iskaga baxo oo aado magaaladiisi asaga oo bukhaara ahayd. bukhaara markuu aaday imtixaan kale ayaa qabsaday. ninkii magaalada madaxda ka ahaa oo la dhihi jiray khaalid bin axmed adduhli ayaa maaragtay fartiin usoo faray uu yidhi waxaan rabaa in aan kaa wariyo kitaabkaaga jaamic saxiix iyo taariikhdii aa qortay, marka maaragtay ii imaw kitaabkaaga soo qaado ii imaw maaragtay si aan kaaga dhegeysto. alimaam bukhaari wuxuu ku yidhi ninkii rasuulka ahaa uu yimid qul lahu inii laa udilu lcilm, aniga cilmiga ma dulleeyo, walaa axmiluhu ilaa abwaabi salaatiin, dadka boqorada albaabadooda ma tago meesha. ninka amiirka haddii uu rabo axaadiis inuu barto ha ii yimaado ama masaajidkayga ha yimaado ama gurigayga ha yimaado, dadka hala dhegeysto. hadduusan rabin isaga waa sultaan, ha iga reebo maaragtay ha yihahdo maaragtay cilmi ma fidinaysid, mamnuuca tahay. ninkii maaragtay waxaa maarata isla weyniyaan qaaday. marka maaragtay culamo kale ayuu maaragtay xoogaa maaragtay la saftay. marka imaam bukhaari maaragtay ay maaragtay buuq ku sameeyeen. marka imaam bukhaari wuxuu arkay marka maaragtay inuu isagana maaragtay magaaladii iskaga baxo. marka imaam bukhaari gacmaha ayuu ilaahay baryay. ilaahay maaragtay wuxuu yidhi ilaahay maaragtay dadkan maaragtay dhibaatada ii geystay oo wadankayga maaragtay dhibaatada maaragtay igu geystay ilaahu maaragtay iga qabo. marka bil kama soo wareegin amiirkii maaragtay iyo wixii asaga maaragtay la socday oo dhan caaqibadooda waxay noqotay caaqibo dulli iyo maaragtay hawaan ah. imaam bukhaari marka magaaladii markuu ka tagay wuxuu aaday qaryo kale oo khartanka la yihahdo oo ahalkiisa ay joogaan. marka maaragtay meesha ayuu ilaahay subxaana watacaala uu ku oofsaday. wuxuu dhintay alimaam albukhaari leylat alfitr leylat asabt oo habeen ciid alfitr ay soo galayso salaada cishaha markii la tukaday. maalintii ku xigtayna oo bacda salaata duhurna waa la duugay. marka alimaam albukhaari waxaan sheegnay inuu dhashay
markii taariikhda ahayd 194 wuxuu dhintay 256 wuxuu noolaa 62 sano raximahullahu tacaala. taa waxaan kusoo qatinay al-imaam al-Bukhaari siiradiisa. hadda waxaan gudagalaynaa annagoo soo koobayno macluumaad in aan ka niraadno kitaabka al-imaam al-Bukhaari oo qoray. marka xalaqada dambe ayaan ka hadli doonaa.